kulan wacan oo wanaagsan saaxiibayaal halkaad naga daawanaysaan waa Boundless Media wararka amaanta idinku hayno qodobadiisa waxaa ka mid ah kooxda Taliban oo u baaqday xirfadlayaasha inaysan ka bixin Afghanistan diidmada beesha caalamka oo caqabad lama filaan ah ku noqotay doorashada dalka iyo sidoo kale maxay keeni kartaa diidmada midowga musharaxiinta ee heshiiskii doorashada daawadayaal ku soo dhawaada qodobadaas oo faahfaahsan Taliban ayaa maanta ku boorisay dadka reer Afghanistan ee xirfadlayaasha ah inaysan ka cararin dalka maadaama hogaamiyayaasha cusub ee Afghanistan ay uga digeen Mareykanka iyo xulafadiisa NATO inaysan aqbali doonin in la kordhiyo waqtiga kama dambaysta ah ee dadgureynta xitaa sida ay wadamada reer galbeedka ay sheegeen in waqtigu uu sii dhamaanayo afayeen u hadlay kooxda Taliban ayaa u sheegay Mareykanka inay joojiso qaadista ama dadgureynta khibrada Afghanistan sida injineerada iyo dhaqaatiirta dalka dhinaca kale madaxa xuquuqul aadanaha ee qaramada midoobay Michael Page ayaa walaac xooggan ka muujisay xaaladda dalka Afghanistan iyo sida uu ururka Taliban ula dhaqmayo haweenka waxay kooxda Taliban ku boorisay inay dhowraan bini'aadamnimadii ahaa in la ixtiraamo xuquuqda haweenka iyo gabdhaha Mrs Michael Bachelet ayaa hadalkani ka sheegtay fadhiga gaarka ah ee golaha xuquuqul aadanaha ee qaramada midoobay oo diiradda lagu saaray xaaladda Afghanistan dhanka kale qiyaastii 16,000 oo qof ayaa laga daadgureeyay wadanka Afghanistan 24 saac ee la soo dhaafay sida ay sheegtay waaxda difaaca Mareykanka ee Pentagon haatan saaxiibada beesha caalamka ee Soomaaliya ayaa ilaa haatan diiday inay soo dhameystiraan dhaqaalihii doorashada qaybtii laga sugayay xilli ay golaha soo dhameystireen doorashada aqalka sare taasi oo horseedi karta dib u dhac beesha caalamka ayaa bixisay kaliya 7.2 milyan oo dollar oo ka mid ah 32 milyan ee ku baxay dhaqaalaha doorashada iyadoo oo ay ka cagajiidayso lacagta kale ee harsan oo gaaraysa ilaa 25 milyan oo dollar beesha caalamka oo dadaal badani ku bixisay sidii ay dalka uga dhici lahayd doorasho wada ogol ah ayaa xilligan la rumaysan yahay inay rabto in taageerideeda dhaqaale ku bixiso doorasho ay ku qanacsan yihiin Soomaalida iyo dhammaan saamileyda siyaasadda oo dhan shirkii dhawaan ee magaalada Muqdisho ku yeesheen golaha wadatashiga qaranka ayaa ajantiisa qayb ka ahaa sidii loo heli lahaa dhaqaalaha beesha caalamka ee doorashada iyada oo maanta madaxdaasi kulan la qaateen wakiilada beesha caalamka Wasaare Roble iyo saaxiibadiisa dowlad goboleedyada oo uu qayb ka yahay maamulka gobolka Banaadir ayaa dadaal badan ku bixinaysa sidii beesha caalamka looga heli lahaa dhaqaalaha doorashada qaybtooda iyada oo saaxiibada dalalka caalamka ay iska ilaalinayaan ku degdegida bixida lacagtaasi ilaa inta saamileyda siyaasadda doorashada si isku mid ah ugu qancayaan hanaanka doorashada mid ka mid ah shuruudaha beesha caalamka ayaa ah in marka hore la meestiro doorashada aqalka sare loona gudagalo midda golaha shacabka markaasi ayay fasixi doonaan lacagta kale ee harsan madaxda dowlad goboleedyada iyo dowladda ayaa ka cabsi qaba in haddii ay u gudagalaan doorashada golaha shacabka laga yaabo in lacagtaasi ay ka sugayaan beesha caalamka aysan imaanin oo ay qasab ku noqoto inay ayaga bixiyaan falanqeeyayaasha siyaasadda ayaa rumaysan in dhaqaalaha laga sugayo beesha caalamka ay sii fogaan karto khilaafka siyaasadda ee ka bilowday habraaca uu soo saaray golaha wadatashiga qaranka taasi oo goluhu isku dayayo inuu hoos u dhigo si kastaba siyaasiyiinta iyo ururada bulshada rayidka ayaa beesha caalamka ka dalbaday inay taageeradooda horseed u noqoto doorasho daahfuran oo lagu kalsoonaan karo taasi oo xilligani dib u sii dhigi karto helista dhaqaalaha la sugayo agaasima ku-xigeenka macadka Heritage Mursal Maxamed Saney oo la hadlayay BBC-da ayaa ka hadlay heshiiskii ay madaxda golaha wadatashiga qaranka ku gaareen amraaca cusub ee doorashada kaasi oo uu mucaaradkii diiday Mursal Saney ayaa ugu horeyntii sheegay in doorashada haddii la isku qabsado ay dhici karto in natiijada doorashada aan lagu wada qanci karin taasi oo lumaysa kalsoonidii shacabka Soomaaliyeed waxa uu sheegay inay muhiim tahay mar walba in loo turo dalka isaga oo carabka ku adkeeyay in xilligani aan loo baahnayn wax ka bedel taasi oo uu sheegay inay diidan yihiin mucaaradka waxa ay ka diideen madaxweyne Farmaajo inuu sidoo doono ka yeesho doorashada marka hadda waxaa soo baxay golaha in lagu suluugsan yahay wixii laga diiday Farmaajo ay rabaan inay iyagana ay suubiyaan oo ay bedelaan wixii lagu heshiiyay ayuu yiri waxa ay ka diideen madaxweyne Farmaajo inuu sidoo doono ka yeelo doorashada marka hadda waxaa soo baxday golaha in lagu suluugsan yahay wixii laga diiday madaxweyne Farmaajo oo ay rabaan inay iyagana suubiyaan
hubiyaan oo ay bedelaan wixii lagu heshiiyey ayuu yiri. sidoo kale waxa uu sheegay in cawaaqib xumo ka dhalan karto in la bedelo wixii lagu heshiiyey kadib markii ay madaxda golaha wadatashiga qaranka soo saareen abraac doorasho oo awoodo badan siinayo. wixii hore lagu heshiiyey ayaa la bedelay. waxaa la yiri doorashada waxa qabanayo oo maamulaya dowlad goboleedka oo looga fadhiyo inay fududeyso. waxay xaq u leeyihiin inay hogaamiyaan aqalka sare oo dowlad goboleedka matalayo. ugu dambeyntii waxa uu sheegay in waxa la isku hayo uu yahay wixii heshiiska lagu ahaa oo wax cusub la keenay, taasi oo meesha ka saarayso heshiiskii hore ee doorashada ee wada ogolka ahaa. daawadayaal ayaan kusoo afmeerayaa war wixii dal iyo dafaha caalamka idinkaga haynay. wararkeena waxaa idiin soo saaray oo idiin akhrinaya anigoo cabdinajiib cabdullaahi najiib akhyaar. intaan wararkeena dambe dib ugu kulmi doono waxaa idinkaga tegayaa sidaas iyo fi amaanillah.